Bismillaah, maanta sheekadeena waxay ku socotaa qoys ka kooban gabar yar iyo aabaheeda. Gabadha yar hooyadeed ayaa dhimatay. Muddo kadib dhimashadii hooyadeeda, aabaheedu wuxuu go'aansaday in uu guursado xaas si ay u wada noolaadaan, gabadhiisana ay ugu noqoto wehel inta uu shaqada ku maqan yahay. Wuu guursaday sidii caadada ahaydna, shaqadiisa ayuu aadi jiray subax walba. Tan yarna guriga ayay joogi jirtay, waayo ma gaarin da'da waxbarasho, balse waxay ahayd ilmo caqli leh, wax fahmayo, waxna sheegi kara. Eedadeedii xaaskii uu guursaday aabaheed ayaa ku noqotay qof xun, oo waxay ula dhaqmi jirtay si xun, wayna dili jirtay inta uu aabaha maqan yahay, wayna u hanjabi jirtay har haddii aad wax u sheegto aabahaada. Aabahani waxaasoo dhan waxba kama ogeyn, waayo marka uu guriga imaado ama ay dad kale guriga imaadaan, waxay ula dhaqmi jirtay si ka duwan sidii hore, oo waxay matali jirtay, iska dhigi jirtay inay tahay qof fiican. Marka ay labadooda keli noqdaanna, iyada iyo gabadha waxay ula dhaqmi jirtay si xun, waxayna iska qarisay ceebeysanaysaane inay dadka arkaan ama ogaadaan, balse waxay ilowday xisaabtan aysan ku darsanin inuu Ilaahay arkaayo oo daawanayo. Ilmaha yarna hadduu hooyo la'aan yahay, uusan ilaah la'aan ahayn, oo ay ka siman yihiin inay labadoodaba leeyihiin Alle aan ilowsanayn kuwa wax dulminayo. Sidoo kale waxay ilowday hadalkii Ilaahay ee ahaay fa amma alyatiima falaa taqhar. Ilmaha yar ee agoonka ah hadhibin, hadal xun hadhihin, hana caayin. Murugo waxaa ugu filan in ay waayeen waalidkooda. Nabiguna wuxuu dhahay calayhi salaatu wassalaam, anaa wakaafilu lyatiimi fil jannati haakada, asagoo ku tilmaamay labadii safaro ee hore. Wuxuuna dhahay aniga iyo qofkii kafaalo qaado ilmo agoon ah, gacan ahaan ha ahaato iyo daryeel ahaan, labadooda mid ka mid ah, jannada waxaa ku nahay sidaas. Taas oo muujinaysa in qofkaasi jannada darajo ahaan uu nabiga calayhi salaatu wassalaam u dhawaanayo. Sidoo kale nabiga maalin nin ayaa u imaaday kana sheegtay qalbi adeeg, wuxuuna nabiga daawo uga dhigay oo ku dhahay imsax ra'sal yatiimi waadcimil maskiin. Agoonka, ilmaha agoonta ah u salaax madaxa, masaakiintana quudi. Ilmaha oo madaxa loo salaaxo, taas waxay ka dhigan tahay daryeel iyo naxariis, qalbigaagana naxariis ayuu ka qaadayaa. Maalinkii dambe ayuu aabihii dareemay in ay gabadhiisa xanuunsan tahay, wuxuuna weydiiyey aabo, maxaa kugu dhacay, ma xanuunsanaysaa? Balse eedadii ayaa soo booday oo dhahday maya, waxba ma qabto, waa caadi waxaasi. Kadibna aabihii wuxuu dhahay waxaa laga yaabaa inay inta ku caajistay, ee waxaan geynaa guriga habaryarteeda si ay cabaar usoo joogto ugana soo hawo bedelato. Wuuna shakiyey oo wuxuu rabay in uu geeyo isbitaal. Gabadhii markii la baaray waxaa laga helay dhaawacyo jirkeeda iyo jug ka gaartay maskaxda, taas oo sababtay ugu dambeyn inay qaliin gasho tii yareed. Ninkiina aad ayuu u xanaaqay, boolis ayuuna wacday, oo eedadiina waxaa ku caddaatay oo ay qiratay inay sidaas gabadha yeeshay. Ugu dambeynna xabsi ayay gashay, iyo aabaheedna sidoodii hore ayay kusoo laabteen, iyaga oo faraxsan gabadhana ay caafimaad qabto. Dulucda sheekada waa baraarujin iyo digniin ah in aan la dulminin ilmo yar oo lagu ammaanaystay. Qofkii raba ha dhalo, ha ahaadaan ilmo u dhalay ninkaada ama ilmo qaraaba ah. Si aad taas u samaysana, 4 qodob isxasuusi markaste. 1. Haddii aad xaaladan oo kale soo mar lahayd, sawiro waad waalidkaaga weyn lahayd adiga oo yar, dhib intee la-eg ayaad mari lahayd, alxamdulilah dheh, maadaama uu Ilaahay adig ku marsiinin. 2. Haddii aad soo martay noloshaasna soo aragtana xanuunkeeda, ha ula dhaqmin oo ha marsiinin hadda kuwaan yaryar, ee waxaa samaysaa taas bedelkeeda, waxaa siisaa wixii aad tabi jirta ama jeclaan lahayd in lagula dhaqmo. 3. Sawiro caruurtaada oo marta wadadaasi, waayo kani waa adduun oo lama joogayo lasma siin. 4. Qodobka u dambeeya uguna weyn kuna socday si guud dadka oo dhan waa xasuuso mar walba inuu Ilaahay ku daawanayo. Ilaahay wuxuu dhahay maxaad uga walwashaan una ceebsataa inay dadka idin arkaan oo isaga qarsaan, balse marna aadan xasuusanaynin isna aniga idin arkaayo, iskana kay qarinaynin. Ma jirto si Ilaahay layskaga qoriyo, balse haddaa xasuusato inuu Ilaahay ku daawanayo, waad ka joogsanaysaa, waa baqaysaa. maanta la joogo waxaa markasta isxasuusinaa dhaxnaane niyadan ku dhisana Ilaahay qafuur raxiima. Sax waay wuu yahay, balse meesha yaan ka saarin
cadaabkiisuna uu daran yahay. Nabbi cibaadii annii ana alghafuuru raxiim wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliim. waa laba aayadood oo qur-aanka isku xigto. waxaa laga yaabaa mid koowaad inaad la oysid raxmad iyo rajo, mid labaadna aad la oysid baqdin iyo cabsi. sidaas ayaana la rabaa inuu adoonka ahaado. ilaahayna wuxuu dhahay adoonkeyga 2 jeer aamin iiga noqonayo, inuu adduunkana aamin iiga noqdo, wuxuu rabo sameeye isoo xasuusanin, aakhirana oo cadaabkeyga iyo ciqaabteyda aamin ka noqdo. sidoo kalena adoonkeyga ma isugu daraayay 2 cabsi, inuu adduunka markuu joogo iga cabsado kana leexdo wax xun, iyo inuu aakhiro markuu imaado cadaabkeyga ka cabsado. marka sidaas ayaa la rabaa in lagu noolaado rajada iyo cabsida dhexdeeda. balse heerka maanta la taagan yahay wuxuu yahay in inta aan dembiga galgelin ka hor la dhaho ilaahay qafuur raxiim, ama la dhaho ilaahuna cafi kadib dembiga la galo. tusaale hadda usoo qaadano 2 qof dumar ah ayaa waxaa laga yaabaa inay taleefonka wada hadlaan ama isla joogaan, rabaan inay qof xantaan wax ka sheegaan. waxaa lagu bilaabaa ilaahuna cafi. intee lagu arkay toobad iyo dembi toobad soo horeyso. taas waxay muujinaysaa sida aan u sahashanay dembiga. sheekadeena maanta intaas ayay ku egtaa. hadda intaan soo dhegeysaday sheekada aad iyo aad ayaa ugu mahadsantahay dhegeysiga sheekada. ugu dambeyntiina aan nabiga ku salino allahumma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed.